السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه ربي سبحانه وتعالى وحوت المامي هذا الرسول كيسيري كما في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسولك وحي يا ربي جيجيو ما أنت آخر أورمت النبي عليه الصلاة والسلام وحو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ربي جيجيو dadkeegi quraanku waxay ka dhigteen mid marka laga haajira hijriga walaalayaal quraanka al-imam ibn kathir alayhi rahmatullah fi tafsir hadhihi al-aya ayada markuu fasiray wuxuu ku fasiray lix macna ayuu ku fasiray macnaha koowaad walaalayaal waa xifdiga quraanka wuxuu nabigu leeyahay alayhi salatu wassalaam ilaahayow dadkeegi quraanka xifdigiisa ay ka tageen waa macnaha marka hijriga lagu fasiray dadka zamankan jooga walaalayaal in badan xifdinta quraanka aad iyo aad bay uga fogaadeen waxay kala dadku ay ka tageen ku dhaqanka kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala waxay kala ay ka haajireen ku amal falka kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo tadabburkiisi in marka loo xukun tago in marka waxa weeyaan macaanidiisa marka la barto walaalayaal quraanka akhrintiis barashadiisi iyo dadka in la baro waa min afdal al-a'mal sida uu yiri imaamka la yiraahdo Muhammad Ibrahim at-Tuwayjiri alayhi rahmatullah walaalayaal sida marka uu sheegay walaalkeen qara Allah siiyo aniga soo qulaasanayo kalimadeena waxa ku saabsan tahay فضل العلم علمك فضلك مركا وليا أهل علمك ولا ليال مصنفات مؤلفات آدي أدفر بضن بك الدياريين فضلك مركا أهل علمك وليا لكن ولا ليال وانصاق ولا سنية علمك ولا ليال dadka zamanka jooga aad bay uga fogaadeen inay ihtimaamay siiyaan dadkii hore walaalayaal qadiiman qalbigoodi way ku weynaad cilmiga aad iyo aad bay u danaan jireen laakiin walaalayaal markaan cilmiga qiimeyn weynay waxaanu noqonay bilaa qiimo ayaanu noqonay sida daraadeed walaalayaal waxaan iskugu boorinaynaa inaanu ku dadaalno barashada kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga alayhi salatu wassalaam rag iyo dumarba waa arin muhiima walaalayaal cilmiga barashadiisi wax ka macaan badan ma jiro cilmiga wuxuu ku gaarsiinayaa wadada aad Ilaahay ugu dhawaan lahayd wuxuu ku gaarsiinayaa wadada aad ku gaari lahayd jannada Allah subhanahu wa ta'ala walidaalika nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam sidad maqashaan xadiidka uu warinayay saxaabiga la yiraahdo Abu Hurayra kama fi sahih Muslim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah ruuxi qaada wadadaasna uu ku raadinayo cilmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu u sahlayaa wadadii jannada marka uu ku gaari lahaa xadiidka markuu fasiray al-imam Abu Nasr Muhammad al-imam حفظه الله تعالى وحيري لا طريق إلى الجنة إلا بالعلم الشرعي ودمجرت الجنة اللي هليه إلا إن علمك دينت الله سبحانه وتعالى مركا الله برت ولذلك ولا ليال هذا الآدي أقيم بدن باوح وحيري إمام كوينات تقانان محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله سيدا أسون نقلي الإمام النووي كتاب كيس مجموعة شرح المهذب كمجلد ككوادي مقدمة وهذا الاسكم مشهورة اسكم معروفة وحير إمام الشافعي وحليه من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم قفكي الدنيا الربا علمك هبرت قفكي آخرة ربنا علمك هبرت قفكي الدنيا آخرة اسكر ربنا علمك هبرتو يجري خير الدنيا يا خير آخرة انتم بوحي كسوغيين برشاد دينة الله سبحانه وتعالى
waalidiinta waxaan leeyahay caruurtiina diinta kula dadaala zamanadan walaalayaal waxaa farabatay waalidiinta inay caruurta ay kula dadaalayaan waxaan diinta Allah ahay laakiin waalid waliba ilmihiisi diinta baray ha ogaada in Allah subhanahu wa ta'ala agti looga xiri doono taaj in ilaahay agtiisa looga ciiseenayo tabaaraka wa ta'ala walaalayaal cilmiga wax u dhigma ma jiro cilmigu waa qaali adduunyada dhan buu ka qaalisan yahay noloshada dhan buu ka qiimo badan yahay wax ka macaan badan cilmiga ma jiro imaamka weynaa la yiraahdo al-imaam ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi wuxuu yiri lil ilmi ladha man dhaqaha lam yatruku cilmiga wuxuu leeyahay macaanka cilmiga uu leeyahay ruuxi dhadhamiyay ka tagi ma barashada cilmiga walidaalika hadalkaasi hadalka agdhow waxa yiri al-imaam abu al-ishaq al-ilbari qadiman waxa horeeyay al-imaam abu al-ishaq ba horeeyay ibn al-qayyim wala horeeyay wuxuu yiri falaw qad duqta min halwahu ta'ma la atharta at-ta'alluma wajtahadta cilmiga macaanka uu leeyahay xaqiisi hada dhadhan ka dhadhamin lahayd waxa doorbidin lahayd aad dooran lahayd علمك إن أدبرته وأن الدلال له وجر ولذلك ولا لي الإمام كوين الحافظ الحكمي أحير عليه رحمة الله لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم هذه الروح وقال لها شرفت يقدر كعلمك مركا أوليها هاي موصى السحدن أنت نيجي ولا ليال قيمها علمك أوليها هاي هدانو قرر لهاي وحور دامي سنقيمات سيدا درادد ولا ليال ضدك هورا قلبي قودي وكوين علمك لكن زمننا ولا ليال وحنا هيست الصبر يرد يدال آدي آدو فربضا ولذلك الإمام الشافعي وحيري آفة المتعلم الملل وقلة الصبر على الدرس والنظر إليه وحليها هي آفة قفك علمي قبرانية وحاول ينبوي الملل دال فربضا إيا الصبر يرد وكو صبر يدروس تا إيا فيرفير انت كتب تأهل علمي هذه الدال كاقو إيا فربطان صبر كاقنا او يريهي وحنا تيجاد علمك كان يسمجدو marka walaalayaal idin ku dheerayn hadalka intuu kooban yahay buu nuxur leeyahay dadkuna ay dhageyso og yihiin laakiin walaalayaal waxaan isku baraarujinayna kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ihtimaam siino marka aan u daneyno waanu ku cuzooyna al-imaam Abu al-Aswad ad-Du'ali wuxuu yiri wuxuu leeyahay al-ilmu zaynun wa tashrifun li saahibihi ilmigu waa qurux wuxuuna sharaf u yahay kii marka bart ahlu ilmigu fiiriya walaalayaal haday hadlayaan hadalkoodu wuu qurxoon yahay haday labistaan labiskoodu wuu qurxoon yahay socodkoodu iyo mashigoodu wuu qurxoon yahay la dhaqanka bulshada ee la dhaqmayaan way qurxoon sida daraadeed sharaf bi mujtamaca ay ku leeyihiin ruux walba cilmiga barta mujtamaca wuxuu kala kulmayaa hadii yahay ruux cilmigiisa marka dhaqan galiyay sharaf iyo cizo kala kulmaya walidaalika walaalayaal waxa muhiim ah cilmiga in marka la dhaqan galiyo waxaan ku soo qulaasanayaa hadalka uu yiri al-imaam an-nawawi alayhi rahmatullah wuxuu yiri hadal dheer uu ka soo hadlay ruuxa daalibul cilmi ugu naseexanay markaas wuxuu yiri حليهاي وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء عاقل ما أهم بيري روحي أصور تقشي درجة أنبياء نحل كود إنه قالوا كدبنا إسكا ضيعي عاقل ما أهم بيري إنت نقول على ليال درجة أنبياء نحل كود إنه وهالنوان أودنا علمي هذا جيدان ونحلك نبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي محمد كلي سماها انت الرسول إلهي صادر إيه انت النبي إلهي هو وحيودي نحلك هذا ويا نحلك النبي هذا إننا نحلنا محاينو ديدي ولا ليال محانا ضيعنا نحلك الدنيا والسكو لانا يا والسكو بابئنا يا والسكو برسنا يا صماها لكن دحلك النبي محمد وعلمك وحكا قيمة بدن ما جرت هذا دونيس دحلك النبي جاي وإن علمك دينت الله سبحانه وتعالى أتكون دراشة اهتمام سيدا أو أدنيسا أتكون فرت أتكون سجدا أنبر عرورتها نبر ده كان أقوبا إن علمك دينت إلهي مركاي برتان على كل حال ولا ليال دينت إلهي أنو ضنينه علمك ولا ليال وحا كحيق عمل تتكوين الدقنقليان ولذلك علماء وحي أورنجلين كنا نستعين على حفظ العلم العمل به علمك ولا ليال وحان كو كالمي سنجرني حفظيgiisa inaan sugno ina marka aan dhaqan gelino waxaad ogaataa dad cilmiga dhaqan geliso ilaahay agtiisa waad kaga cizoowaysaa bulshada iyo mujtamaca xaqooda waad kaga cizoowaysaa nas'al Allah jalla wa ala an yu'allimana wal muslimin min ilmihi al-'azim wa an yarzuqana al-'amala bima 'allamana walhamdulillahi rabbil alamin عليك سلام الله يا خير زائر
تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب